البغدادي تاريخيا كاسي وحولها لما أرق بوري ضد أصاب حي إني واحترترانون لا أرق بوري ضد أنت يدل قبصدان رمينا حكومان مركز بوري تتاركو ملكي وحبابا ما يدونين إني واحترترانون بيربين waxa loo sheegay magaaladii hore ay tirtireen 700 kun lagu dilay dadkii wax nolol uun ku sugnaa inay jiraan wuxuu yiri magaalada tan dabada la isugu soo saaro kadibna wuxuu amar ku bixiyay magaaladan si aan u hubiyo dadkeedu inay dhinteen dilku waxa weeyaan buu yiri qof kasta waa in madaxa la gooyaa qaar kasta madaxa iyo inta kale waa inay kala baxdaa dadka madaxa laga wada jaro si loo xaqiijiyo qofku inuu dhintay culimada taariikh waxay yiraahdaan magaalada tanna bil istithnaa iyadaan waxba laga reebin ayaa raggoodii madaxa laga jaray wixii dumar ahaana la ka haystay 15 maalmood baana magaalada baaritaan lagu waday oo dahab iyo lacag iyo xoolo laga raadcaynayay Nisaaburna waxay ka tageen baa la yiraahdaa atharan ba'da ayn raadiyadoo ah meeshii magaalada ahaan jirtay iyana saasaa lagaga tegay Harrat magaalo la yiraahdo soo galay haddana Afghanistan waqooyigeeda ku taala ibnu Genghis Khan waxba yaan taariikh balbalaadhin sidoo kuwii hore u galayna oo ka takhallus magaaladan markii la leeynayay nin boqor haystay oo la oran jiray Malik Khan boqorkiina waxoogaa yaroo ciidankiisa ka mid u qaatay casriga waxay caan ku ahaayeen boqorradu ibixiyo wibixinta yiraahdaan wuxuu ka haysan karaa intuu ka haystay inuu taw yiraahdo waaw in ciidan uu ka haystay dabeetana meeshii buu ka baxsaday magaalo bilaa ciidan uu soo galay kadibna wuu tirtiray Khurasan 617 hijriyada sanadka gudihiisa ayaa dhammaanteed la tirtiray culimada taariikh waxay leeyihiin min a'jab al-umur allati marrat bil ardi itlaqan weeyaan baydaa lama arag Khurasan bay yiraahdeen oo dhammaystiran sanad gudihii waqtiga yar inta leeg in sida loo galo taariikhda hore iyo dibtoona loogu maarag Khurasan markuu hubiyay inuu tirtiray ayuu ka talaabay gobolkii boqortooyadu ay deganayd Khwarizm al-Khwarizmi buu ahaa boqortooyadii iyo dawladda oo dhammi gobolkaas dawladda laga xukumi jiray ayuu waacday gobolka kani wuxuu u dhaxeeyaa Uzbekistan iyo Turkmenistan labada dal dhexdooda buu ku yaalaa waxa mara wabiga Jihon la yiraahdo Khwarizm waa magaalo qani ah xagga dhaqaalaha istiraatiiji ah oo meel khatar ku taala population aad u tiro badan ay degan yahay boqortooyadii waddankan maamuli jirtay dhulka dadkoodii degan yahay ah kadib maadaama ay taliskii meesha ay ahaan jirtay Genghis Khan wuxuu u diray ciidamadiisii ugu tiro badnaa Khwarizm wuxuu kaga xisaabtamayaa maadaama dad badan ina degan yahay dagaal xooggan inay la kulmaan ficlan way isku dayeen gobolkan dadkii degi jiray iyo magaalada tan inay isdifaacaan 5 bilood ayay qaadatay inuu xisaar ku hayo go'doomin 5 bilood wuu furan kari waayay ciidankii Tataarka waa u suurto gali weyday inuu dabeetana waa la soo kordhiyay ciidankii Tataarka mar labaad ayaa la tiro badiyay ugu dambeyntii waxay ku guuleysteen Tataarku derbiga qayb ka mid ah aswaar ba magaalooyinkii qadiimka ah ku wareegsanaan jiray derbi difaac laga galo derbigii qayb ka mid ah buu dumiyay dabeetana wuu soo galeen dagaal baa bilaabmay dagaal aad u halisa qabsaday labada kooxood ba waxa la yiraahdaa tiro aad u badan ba ka halaagsantay yani dad aad u tiro badan waa la isku madhay markuu arkay Genghis Khan ciidamadiisa inuu khatar ku jiro ayuu haddana madad kale u soo diray ciidan saddexaad baa yimi oo Tataarka ah laakiin magaaladan yar miskiinta ayada cid uma maqna waayo muslimku qolo waliba tuula gaar ah naftu kaga baxday wixii isku xidhi jirayna waa tii la waayay oo boqorkii baxsaday magaaladii waxay isku dayday inay dagaal ku jirtaba akhiiran waa la jabiyay dabeetana dadkii wax dhuunta wax godgala wax baxsada waxba sibay yeeleen baaritaanka bay inugu tiro badanaya bay yiraahdeen maxaynu sameynaa magaaladan wuxuu go'aamiyay
magaaladu waxay leedahay dhaam aad u weyn oo webigan biya uu ku shubo oo sad dheer derbi dheer uu magaalada ka xigo wuxuu yidhi magaaladan waa inagu rabshad badataye sadka ha la dumiyo derbigaa la dumiyey dhaamkii magaalada ku yaallay baa lagu faruuray khawaarzam webiga jiixoon baa lagu daray ilaa hadda webiga jiixoon bay ka mid tahay magaalada gebigeediiba wuxuu raaciyey webiga ayuu ku daray dadka intii baxsatee god gashay iyo meel gashay iyo guri ku dhuumatay iyo kan ku dhuumatay waxaa la raaciyey daadka waxay dhahdaan taariikhda lama hayo wax la mida qowmu nuux mooyaane qowmu nuux sidii alle u qarqiya badda ugu daray ayaa magaalada tan iyo dadkii joogay dhammaantood badda lagu daray waxa aan ka warramayo o dhammi waa sanad gudihii waa 617 hijriyada khawaarzamna saas buu kaga takhallusay waxaa markaa uu tataarku gacanta ku dhigay khuraasaan iyo khawaarzam waddankii la odhan jiray abaadawla alkhawaarzimiya waxaan weli gacanta tataarka gelin koonfurtii dowladda koonfurta dowladda waxa weeyaan kaabul laga soo bilaabo ilaa iyo bakistan iminka waa intii sare qawqaaziyiinta iyo eeraan dhinaceedaa bariyo intaa sare intuu qabsaday waxaan weli gacanta dowladda tataarka gelin markaa dowladdii khawaarzimiyiinta la odhan jiray koonfurteeda waxaa haystaa boqorka inankiisii jalaaluddiin nin la yidhaahdo inamadiisii roonroona ka mid ah ayaa madax ka ah haatan wuxuu noqday azaciimi sharci lidawla madaxda qudha ee dee la ictiraafsan yahay waddankii uu leeyahay wuxuu isku dayey inuu ciidamo urursado dhulka intan markaa laysugu soo baxee laysu imanaya waa dhul adag waa dhulka afghanistan loo yaqaano maanta waa dhul buuraleeya waa dhul aan farduhu si fudud u gelin waa dhul aan taariikhda hore dadka degan loo jibin jirin waa dhul dadka degaa yihiin dad dagaalyahana waa dhul dadka degaa dad xamaasa iimaaniya leh oo wax iska dhiciya waa dhul dadka degaa inta badan aanay aqoonin gumaysiga waxa loo yaqaano saa daraaddeed ciidan buu urursaday uu samaysanayo uu samaysanayo jalaaladiin ibnu moxamed ibnu khawaarzam shah uu rabo inuu iskaga difaaco tataarkii markii uu ciidankaasi urursaday waxa uu madaxa magaalo la yidhahdo ghazna 150 kilomitir bay koonfur kaabul ka xigtaa halkaasuu degan yahay oo madax uu ka dhigtay caasimad uu ka dhigtay jenkis khan markuu maqlay ciidan baa halkaa isku urursaday ciidan tiro badan ayuu magaalada ghazna u soo diray iyana in weerarka lagu qaado meeshan waxaa kaloo yimi ciidamo atraaka oo uu wato nin la yidhaahdo sayfuddiin bakhraaq oo dagaalyahan ahaan jiray nin dagaalada aada uga caan ahaan jiray qaa'idna ahaa oo 30 kun oo ciidana wata ayaa soo galay isna wuxuu ku biiray jalaaluddiin ciidankiisii waxaa kaloo meesha yimi 60 kun oo magaalooyinkii la tirtiray ciidamadii firdhadka ku soo baxsadaya oo iyana koonfurta soo galay 60 kunna way timi idan jalaaluddiin ciidankiisii uu urursaday 30 kun oo uu wato ninka la yidhahdo sayfuddiin bakhraaq 60 kun oo baxsigiiya intaas buu isku ururiyey dabeetana waxaa la galay difaac adag waxaa kaloo yimi boqorkiisna haraad ka soo cararay ee melik khan lo odhan jiray oo isna in guuta ah wata ayaa isna soo galay waxa meeshii isku urursaday ciidamo badan oo muslimiintu leeyihiin wax soo jabay iyo wax soo madad ku yimi iyo wax meesha sii joogayba ciidamo kumaankum gaadhaya marka kan baa isugu yimi oo weliba firqada turkiga ahi atraakta ahi ay yihiin niman well trained ah askar rasmiya oo wato nin dagaalyahana oo la yaqaana oo yacni takhtiidka dagaal si fiican wax uga garanaya ciidankii waxaa la gartay markaa jenkis khan iyo ciidamadiisa in loogu baxo dhul istraatiijiya aan magaalada la isku haleelin wuxuu u baxay magaalo balq la yidhaahdo waa mantiqa wacar bay yidhaahdaan aad u dhagax badan buuraleeya farduhu aanay fududayn inay si fiican uga dagaalgeli karaan ciidanka fardo aada u dheereeyo fudud oo bila kooraha lagu fuulo oo dagaalyahanaa buu wataa jenkis khan iyo ciidamadiisu markaa dhul aan farduhu ku fiicnayn
ayay u degeen dagaal baa meeshii ka dhacay ciidankii muslimiinta iyo ciidankii uu Jenkins Khan watay isaga ka socday ayaa ishaleelay muslimiintu waxay galeen dagaal mintidnimo ah oo ay arkayaan inaan waxba u hadhin idan xamaasada ay muslimiintu xamaasadoodeen markay arkeen inay isku soo urureen manطقada ay ku dagaalamayeen oo dhul istaraatiiji ahayd tirada oo marka kan aad u badan ninkan ciidanka watay Sayfuddin Baghraq oo kalsooni dadka ku abuuray ciidankiisan military wato ciidan khatar ah iyo ninkii marka kan wadanka qaybtiisa soo hadhay madaxweynaha ka ahaa oo go'aansaday inuu dagaal galo oo isna safka ku jira boqoradii hore way yaaceen laakiin ninkan waa nin madax raba inuu dagaalka galo oo isna safka koowaad ku jira arrimahaas oo la isku daray waxay keensatay inay muslimiinta niyadu u dhisanto oo ay garan karaan inay wax iska dhiciyaan muddo markii la isjafayay dagaalku socday ayaa dagaalku adkaaday maalintii koowaad waa la isku madhay waa la isku gobol dhacsaday maalin labaadii baa la isgalay waa la isku madhay waa la isku gobol dhacsaday maalin saddexaadii baa la isgalay waa la isku madhay kadib baa ilaahay u jabiyay nimankii gaaleen saddex maalmood markii la isayay kadib ayay gacanta sare yeesheen kooxdii muslimiinta ahayd waa awal marra markaa taariikhdii tataaree hore ee koowaad ee la hayo la jabiyo dilkii baa ku tiro batay baaqigoodii baa kala firdhaday meel kasta waa loo caymadiyey Jenkins Khan oo magaaladii Talqaan jooga ayaa warku gaadhay la odhanayo ciidankaagii waa lagu hurgufay cidi kama noola runtii waxaa muuqday barakatul ijtimaac dadka muslimiinta hadday isu tagaan iyagu isnabadgeliyaan oo ay dagaal wada galaan inay jabaynin waxaa kor noqday macnawiyaadkii muslimiinta oo jeeshka tataarka lama jabiyadii baa been noqotay ninkii la odhan jiray Jalaaludiin ibnu Muhammad ibnu Khwarizm Shah boqorkan koonfureed ee odaygii hore dhalay kalsoona u gashay ciidankiisii oo wuxuu arkay rag wax iska dhicin kara raggu maanta wataa inay yihiin kadib Jenkins Khan buu waraaq u diray oo yidhi ma kugu hadhay dagaal baan diyaar u ahay haddii war hadhay waa dagaal Jenkins Khan ciidan dambuu soo ururiyey waa soo dagaal tegey mar labaad baa goobta Kabul hadda la yidhaahdaa la isku haleelay caasimadan hadda Afghanistan ee Kabul la yidhaahdo ayaa dagaal labaad la isku haleelay dagaal adag buu noqday oo meesha ka dhacay muddo markii la ishayeyna dagaal ka xoog badan bay yidhaahdaan kii Ghazna balq agteeda meesha yareeda ka dhacay dagaal ka xoog badan buu noqday kan Afghanistan caasimadeedii ka dhacay Kabul mar labaad waa ku cabeen nimankii tataarka ahaa waana ka xoog badiyeen waxay noqotay tataarkii in mar dambe la jabiyo laakiin mushkilad cusub baa soo ifbaxday waxaa soo baxay tataarkii waxaa laga helay khaniimo hayru caadiya waayo wixii dhul muslim lahaay oo dhan dee waa kuwii soo guray Bukhaara Samarqand Naysabur Marwa Haraat Balq wixii magaalaba jirtay Talqaan waa kuwii soo gurtay ciidamadani waxay ku raraayeen xoolo aad u tiro badan leh markii la jabiyeyna waxaa laga qabsaday xoolo aad u tiro badan leh ciidankii Jalaaludiin uu watay xoolihii baa la isku qabtay Sayfuddin Baghraq iyo ciidankiisii waxay yidhaahdeen dee dagaalka waanu ka qayb gallay si fiicanna waa u dagaalanay xoolaha barhkaygaana la siiyo Malik Khankii Haraat ka soo cararay isna dagaalka ka qayb galay isna wuxuu yidhi xoolaha barhkaygaa la siiyo muslimiinta dhexdoodii waaba la murmurmay murankii baa adkaaday dagaal baaba dhacay dhexdoodii baaba la iska dilay Sayfuddin Baghraq nimay walaaliyeen oo ciidamada raggii hogaaminayay baa kow lagaga siiyey muslimiintii waxbaa ku kala dhintay markay halkaa marayso ayuu Sayfuddin ciidankiisii 30 kun ee dagaalyahankii uu watay ayuu ka haystay goobtiina iskaga tegey waxa soo baxday fikraddii in dadku ciidanka hunguriga isku dilo tu nabi Muhammad la alayhi salatu wasalaam fa wallahi mal faqra akhsha alaykum ilaahay baan ku dhaartay buu nabigu leeyay
faqri idinka biqi maayo waxaan se idinka